wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee Galmudug maamulka degmada Cadaado waxa garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada wafdiga madaxweynaha ayaa waxa loo galbiyay hoolka weyn ee nasiinada garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado halkaas oo kula hadlay warbaahinta ugu horreyn gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Toole ayaa soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha Jubbaland wasiir Saabir iyo xildhibaanada iyo wasiirada kale dhamaantiin waan kaga mahadcelinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa odayaalka dhaqanka dhalinyarada haweenka ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda cid kasta oo saaka ka qayb qaadatay soo dhaweynta wafdiga dowlad goboleedka Jubbaland ee hogaaminaya madaxweynaha Axmed uu hogaaminayo madaxweyne ku soo dhawow magaalada Cadaado adiga iyo wafdigaagu marka sidaas daraadeed waxaan leenahay waa mahadsantihiin adinkoo safar dheer u socday oo shaqo kale u socday inaad annaga nagu soo leexatiin oo aan soo dhaweyn annaga sharafaan nagu jirta dib naguma ahan waftigeena iyo madaxdeena dalka aan soo dhaweyno wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo kheyraadka badda ee Galmudug oo asna goobta hadallo kooban ka jeediyay ayaa madaxweynaha Jubbaland ku soo dhaweeyay magaalada Cadaado madaxweyne hadal badan uma aanan istaagin waxaan rabaa mikrofoonka inaan kugu soo dhaweeyo aduu dadka kama miidteed leeyahay Cadaado cidi kama xigto qolada ay u qoran tahay warkaad ka mid tahay magaaladaadii baad joogtaa dadkaagii waa dadka maanta ku soo dhaweeyay waa ku sugayaan xuqaashii odayaashii siyaasiyiintii dhalinyaradii dhammaan qaybaha bulshaduna kulama gooni kula yeelan doona waa ku diyaar waana ku soo tala gashay madaxweyne ku soo dhawow ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa u mahad celiyay dadkii soo dhaweeyay waxaana ugu baaqay inay garab istaagaan Galmudugta cusub sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay inuu kulamo kala duwan la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Cadaado salaanka bacdi waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta idin soo maro iyadoo aan garanayo waqtigii ugu dambeysay ee kelmadii aan Cadaado ka idhin hal waxaan rabaa maalintii ugu dambeysay waxaan ku Cadaado sida lagaga tagin oo dowlad goboleedka Galmudug in Cadaado deyn kala tagin laakiin waxa hadda soo baxday inay madaxweynaha Galmudug Cadaado qaadatay tawaad garanaysaan insha Allah ninkii ugu fiicnaa ugu mudnaana waa doorateen taasina waxaan isleeyahay waxay idin tahay nasiib intii aad soo sabrayseen bedelkeedii aad u hesheen arrinta labaad ee soo marisay Cadaado waxay ahayd meesha waa baha jeclaa waalidka ee dadkeeda uu jeclaadna inaad jeclaataa laga rabaa sidaa daraadeed aabbahay Sheekh Maxamed Islaam baa mudariska ahaa uu jeclaa iyadiyo dadkeeda anna waan jeclahay reer Cadaado tabeelo dadka uu qoran yahay ka mid kuwa qoray baan ka mid ah soo saabir sheegay lagama xigada kuma jiraan waxaan aad u rajaynayaa insha Allah inaad horumar intaan ka sii badan gaadhaan Cadaado way dhisantay way ducaysnada meel culimo degan tahay bay ahayd ma ahayn meel fasaad iyo fisqi badan uu ka jiray markii horeba isku duubnaataan dawladdiina ilaashataan madaxweynaha aad noqotaan Galmudug Axmed qoorqoor inaad daba istaagtaan oo noqoto meesha laga sabood gareynayo oo aad u hurtaan wax walba oo dawladnimo oo waxa Galmudug way dhib badan yihiin oo qabiil walba hub iyo ciidan gaar ah iyo waxaas oo haystaa inaad noqotaan cidda ugu horeysay wareejisa ee dawladnimada lagaga tagayo iyadu saldhigga u noqotaa hadii Ilaahayna waayo marka idinku aad hoggaansantaan buu kuwa kalena dariiqay rabaan u maraya hadii Ilaahayna marka taana aad baan idinku wadaadinayaa waan jeclahay inaan xilliyo badan idin imaado waqtiga duruufta iska adag aad baan khayr idinku rajaynayaa waxaan isleeyahay waan kulmi doonaa gooni iyo odayaasha iyo kulligiina aad baan idin salaamayaa waxaan u soo marayna waa jacayl aan u qabo oo aabbahay u qabay oo asala Liban Cabdi Ciise TV-ga Shabeelle magaalada Cadaado